socoto awri u shishman tahay ayaa magaalada Burco ka ambabaxday iyada oo u jeeda heerahoodii oo markaa yiilay banaanada xabuuqa iyo xalxalis raggu waxay isugu jireen in heer ahaan isu sii yara xigta oo xirsi ismaan iyo in aan waxba ka fogeyn xididna ay ahaayeen qolada hore oo Muuse Carraa sahaydii baa la kala qorsheeyay cidii iyo sidii loo soo iibin lahaa taas oo keentay in xirsi Cali Buraale waa xirsi caamil la yiraahdo soo iibi subag iyada oo subaga ragtis into sixinku ugu mudnaa xirsi waxa uu soo iibiyay subag lagu dhaliiray xaydna lagu sheegay isaga oo keenay subag heena ama dhuux nooca marba loo yaqaan halkii sixin laga filayay daliisha waxa aloogay weerar Cali Geelle oo isaga oo miis reerkiisa u sitay socotada kala mid noqday kolkii eeg la marayay subagiina dhowr jeer wax laga cunay ayaa weerar dhaliishii u muuqatay daboolka ka fay taas oo haddii ay jirtay meel ka dhac ku ahaan lahayd xididkoodii socotada ka midka ahaa waxa weheliya weerar oo dhaliisha ka sokow kaftan jidaasha la isku dhaafiyana uga dan lahaa weerar halkii uu ka mariyey tix markii dambe ka garnaqeedii ku ekaaday afarta gees ee gobollada waqooyi iyo hawdba arrintii waxa ay gaadhay heer nin wax istaawiyey oo geyigaa joogayba isku dayay inuu baltarkii kaga garnaqo sidaa darteed baa gabaygii u tafay kulana baxay silsiladii xayda taas oo hadalhaynteedii la dhibi waayay intaa haddii aynu ugu boqol dhignay aan ku bilowno tixdii weerar waxa uu weerar Cali Geelle xirsi caamirow laynahiib laguna haaraayay alla ilaahay habaar baad qabtaa waana la hubaayo dadaduu kula ka dhigto iga lagu yeero waa loo hadaashaa anfa hadasha waa ceeb nimankan hablaha kala qabniyo hurinta reer Muuse inaad la hormartaamay ekeen waxaan haboonayn hor ilaahay soor wacanadaan ugu hawlgelin hilibka iyo maaqirda waa heli karayseen hareeraha kun miiga jiro laga hiraabtaay meeshaan hanaan gobanimo iyo hadiyad eegayay hadmiya mati xaysidaad xaan ku dhayanayso waxay keentay in xirsi Cali Buraale xirsi caamil ka gudbiso habeenkii weerar tixdan mariyay galabtii xigtay baa carraabihii xirsina tan ku mariyay wuxuu yidhi xirsi caamil hadalkaadii tiri weerarow waa hufiya beene adiguba waxaad fadhiday hooska tuulada habeenno wax sii ururiyaa hawl ninkii qabani haydaarada iyo waadugay hilibkii dheeraay hayin iyo markaad subag heshaan hawlku soo mariyey aad laba gadiid ka hirqataad honoona ay tahay min wixii hungurigiisa maray hiifay waa qadatay hareer baa uu isaga weeciyaa waxaan habboonayn hareeraha kaleefkii markay gacantu haarowday waatay fartan iyo daqaad sii haraatidee war haseeg yahay maxaad uga hakoon weyday buur markii labadaas xood la kala ritay ayaa arrintii fitay oo waxay noqotay dee qodob gar ah baa la isku qabsaday markaa yay raaci doontaabay su-aasha soo baxday noqotay weerar Cali baa tixdii u geeyey ninka la yidhaahdo Maxamed Nuur Abakor huubana ku magac dheeraa ilaahay ha u naxariiste dhammaan isaga iyo intii kale huube ayaa ka soo jeediyey markaa tix sidii isaga ay ula noqotay in dee markaa garto ay ahay waxa uu yidhi huube rag baa gabayga moorada ka daya Maxamed Xaashowe waa Maxamed Xaashowe waa buur hayste rag baa gabayga moorada ka daya Maxamed Xaashowe maluugta iyo waa kala tagaan minanka loo hadaayo markaan anigu meel kaga dhacaa murama joogaayo rag la maray madayne iyo xidid mudana taad qaatay oo kala mid jiray sahay intuu maalkii kala qaybshay maskabkii ka soo hadhay hadduu midigta kuu saaray kol haddaad magaalana fadhiday manina diidaysa oo lacagtu waa maran ogtay midigtu kuu buuxday mid buuxa baa laga helaa maalin iyo leyl maakhiri lo-aad baa kundaas lagaga miisaaye muraad noolba waa laga helaa moodka kii culus inuuse sababku kaa muuna dhacay maqali saaqeeye muslax caamirow kuma gar noqon maliya beenbeene mudaahanadu waa waxa qarribay madaxda reeraaye haddii xaajadii muran ka dhaco laygu soo meesho mareexaana hadalkii ku jaba kuma muraasheene milmilla ha u dhashay inaan dulmiyo maanka kuma hayn hadba muusinkay taagantaan kaga majiiraaye gar haddaan madmeli xaajigaanan mara ku qaadeene inaan adiga kula meel ahaad muhatay dhowr jeere abtirsiino meel uma hayeehay miliilihine haddii geel waa maajimiye meel fog laga doono uu fiirka kama maarano waa mitirinaaye
marbaa garowga naaguhu miraan magas ahaadaaye wow macandis ruuxii dib jiray madaxu gaadheed haddii weerar hadalkuu marsaday maragu soo joojo oo uu wax lama miixiyee maadha ka caddeeyo nin kastaa manfacadii ha cuno murudki xaydiye waxba yaan ku madadaalimine moosku kugu heli tixdaa markii uu mariyey ayaa diiryaha guulad warsame isna allaha u naxariistee uu goobtii uuba uga jawaabay markii uu diiriya maqlay jawaabtii huude waxa uu ku yidhi huugow weli gartii way laalaadaa oo waxaa tidhi haddii weerar hadalkuu marsaday maragu soo joojo balse ina adeer huugow mid gaaban baan ku odhanayaa haddii weerar taa uu marsaday maragu soo waayo oo uu wax lama miixiyee muujin kari waayo macalqabasho dhaareed xirsina yowmur soo tiriye hadduu maro madaacalayna yahay meertay dabadeeda kolkaasuu mudduhigii handaday moosku kuma eelin su-aashaasi maya way yeelan weyn geeriyaa dabadeed tixdanna daba joojiyey gartaad maxamed huugow naqdee unka wada gaadhay gaashaamaday noogu timi galab carrawtiini dayuuradaha guuraynay iyo gaadhiyaa sidee gudinina shareecadaba waa lagala geegaaye jiddigii xirsi xismaanka iyo guudka habaryoodi gud baa laysku yidhi xaajadaad goysay keligaay min gooniya shareecadaba waa lagala geegaaye haddii hadalka lama guud maree odeeya loo geeyey runtii waxa ah huugow inaad gawris leedahay ninkii galaxsanaa waa ku helay ee gadan jiray geed buu ku saaraa markuu kuugo leeyahay kolkase xerirku kugu geedi yahay layska garan waaye umbii subaga laga soo gingimay ee la kala boostay ninna sooga kii kalena waa tuu guddoonsaday waa tii guntiga loo furtee laysku gaabsaday maxaad caamir ugu geesitaa sow ku guban maysid markii labadaa intaa laysweydaarsaday ayaa waxa meertadii haddana soo galay ninka leeyahayo aad xamdulle nuur abakor aar waxa ay la noqotay in meeshii oo dacwaday timi aanu maxamed nuur oo adeerkii ahaa maragna isman madaaxanagiina walla weydiin ee gadkii uunu iska riday markaa sidii ay la noqotay wuxuu ka yidhi isna miigaa gabay ismaanow beryaan waa anigaan marine ka mastuurtay waa hore haddaan miiganaan jiray rag wixii ismaagaba garbaa lagu muquunshaaye waxaan anigu maankay ka helay marime aan moodin rag wixii ismaagaba garbaa lagu muquunshaaye kol haddaan muduxigii gartaa maragu soo joojin oo aan madaacalay waliil lagula soo meelin aan labada meeloo dacwiga laysu soo muujin oo aan guddidu meel u bixin kharashna miilaynin waa ila maroo caamilow moosku kugu heeli afartaa wax lama miixiyee maadma ka caddeey midna waxaan ka idhi xaajadii laysku maandhaafay meeshaa ma joogina waxaa igu maqaalooday mardiweyne awrbay anfaca uga milaalayday masruuf waa siteen jaad kastaba mudanka sooreede timir malab leh shaah mulukiyaa miingi ka ahaaye macaluulkayaab iyo xarraga waaba kala maane muslix muslimnimo haddii loo gar noqo marinka dawleeya uu maragu furo xoolahaa layna maqashiiyey miyaan xayd madow maalintaa lagaga maarmaynin markii halkaa ay maraysay ayaa waxaa soo galay meertadii jaamac xirsi oo tixdii aan ka qoray weli dadkiisii cajaladna aynu ku hayno wuxuu idhi jaamac xirsi nimayow gundaa reer xirsiya guudka habaryoonis haddii gabaygii xaydee fogaa haatan hoy waayey oo weliba lama gaabinine gees walba u duulay galka beeratiyo ceelxumiya gobabka ood weyne gaashaamo iyo yuxuyibo goodiyada ceelka iyo goodi raaliya xalxaliskeeda laga waabtay guryuu badane hayl waararkiibaa galabta keenteen warbalgaabsada yaanu noqon goxondha weeyaane ragse gadoomay meel socotadii gaadhu ka idlaatay mar haddii guryaha laga durkood gaxal ka dheeraato goodigana joogooman guri guuri kari waaye gasiinkii xalaalku abaad gacanta saartaaye yuxubse waxa ah kaad garan laadee goobta kaa dile gaagaade soortii xumayd gaaja waa cudure u garawna inuu weerar cuno gabayna wowdow nimankii gabdhaa qabay haddii guuska la hor keenay kuna gubanina dee caamir baa gabay wax shayddaane ninkaad adigu waa galaxsantiiyo geda ku sheegaysay intuu ficilku kula gees ordaad gaadhay hubane garta maragga adigaa ku furay goor horeetabee dhaaxaad gashaad xaajo weyn goysay ka yahay guddiga looyarkeedaa tahee hayskabaanadii godkaa maxamed naqay diiriyow gawdis laga waayey isagoo diiriye gaaraan ula sii hadlayabuu halkaa aad moodaa intaa markii ay maraysay ayaa xirsi cali buraale xirsi caamir mar labaad ku soo noqday waxa uu yihi xirsi mirkaad tidhi adaan kugu qabsaday maxamed nuurowle maantuun hamoodine horaan muran u taagnaaye nin marooshay
xaajada ifkuu muro ka qaadaay maqfuura iyo haddii aanu celin mahada lee toobad miisaanka aakhirana waa man iyo dheeraad wax mustaqir noqda iyo wuxuu muduuci maragu soo joojo iyo wuxuu madaacalay qurdi iyo xeer iskaga meesho kol haddaanad labadooda muuq meel isugu keenin oo aan guddiga dhowr milgeli meesha kula joogin macnaba maaha xaajada inaad qola ku moostahay waa maxay masaladaa naqdeen adiga maankaa haddii weerar hadal uu marsaday maalma kuu tiriyey oo uu manfacadii u cunay mahobiyoocaayay uu sida iblayska ismaldahay midabo dhowrjaad leh ood adigu macaluulka hadal meesha soo gelisay waxaanahay madaacalay muduuci moosinkeed bixini ama maantixdaan maaganaa miinka ka caddeeyo inaanu maalin soo qabin burciya madashi roorkooda isagay muraad wada siteen meeshana u xigay magaciisa raagay xirsaa ii markhaatiye waa xirsi wadhane oo ay weerar gooniisku sii luqa ahaayeen isma jiiristii socod kolkiisa hay lama adeeray wax dhammaan muddadu noo ahayd muurka subagii aan mushtariga wada iibsanaan muran ka oognayn maakhiri loo aadiya midal meesha may gelini isagay muraad wada siteen meeshana u xigay magaciisa raagee xirsaa ii markhaatiyehe hadduu meel ka gaabtana qurdaan madadu joogaayo waxaa dabadeed meertada soo galay guuleed xawaash oo run ahaan tixihii uu ku soo galay aanan dhammaan ku hayn laakiin sidii dee sheekadu ay u xidhiirsanayd uun baynu bal telinayna tix guuleed xawaash oo intan aan ka hayaa waxay leedahay waxa huuda lagu gawriyaa waa garaad xume annagaa gartiinii naqnaan gees ka marahayni kol hadduu garaad leeyaho gugu u weynaaday ninkii xaydha soo gaday ayaan eed isugu geeyey waxaa haddana meertada ku soo laabtay xamdulle nuur abakor waxa uu yihi xaada gabay daryahan diiniyow xaaladee dhigay caawana xusuus baa qalbigu xaajada u galay xeer beegti waa inay guddiga xaqa ka sheegtaay xisbiga iyo shareecaduba waa laba xariiqoode hadba u dhigan dambaabkiiyo ajiga xarafyadiisii midba xaashi baa malag hayaa loo xadidayahay intifaallo abidkeedba waa xeerka dabadeed xirsi iyo ninkaa weerar cali laysxasaradeeyi subagay xanaanka u sikeen laysku xaaleeyi kol haddaanad xogagaa lahayn maragna xuulaamin xayd iyo inuu sixin ahaa looma xeel bixine xag ilaah waxaan dayin guddigii xaalka loo diray aakhiro xisaabbaa jirtiyo xaq iyo miisaani gartaan xaali loo niqinna waa lagu xidhmaayaaye xusbadeeyi oo 10 ninbaa xaajadaa naqay inuu gabaygu xeel leeyahaan xaqa la sheegaynin xigta looma waayina ku filan reer xirsi cismaani war guuleed xawaashana maxaa geliyey xiideed markii ay labadaa kala riteen ayaa guuleed xawaashi ku soo noqday tix labaad oo iyana aan dhammayn waxau yidhi guuleed xawaashi weligiiba guuligama helin gaban iswaalaaye difaacooyin baan ridi lahaa waan ka gaabsaday guuleed xawaash baan iyo guurtigii hore gidigii islaamkaba haddii eedi kala gaado gaafaan ku leeyahay haddaan joogo golahaase waxay geliyey xaajada tolkaan kala guraayaaye gudii galaba gabadh baan dhisaa gogola raashaaye koorkiiyo wankaa naaxiyaan kugu gargaaraaye adna meeshii kaa gaabataad igu gufaysaaye haddaan guuro oo reer tolkay ciidanka u geeyo bal maxaad ka guran maalintaan guri cas kuu reeba buy halkaa markii ay maraysay ayaa waxa ku soo noqday diiriye aw guuleed mar labaad diiriye ayaa lagu yidhi gartii laydinka heliyey xaal bixiya sheekadana qarsada oo halkaa ku daaya dabadeed axmed barre ayuu tix u faray xaaji jaamaca bokor oo markaa bari inan la yaag ku ahaa tixdii oo aan dhammayn waxaynu ka helay intan waxa uu idhi diiriye qawlan iyo malaa jaamaco way qaladeene qarshi iyo waxay dhaafsateen quudkii tuuladae qayrada xirsi xismaan intaan qaylo marinaayo ee xaajigii qararo jiray sabarku gaadhaayo qarsiinada miyaan yeelaya qaadir baa jire xaaji jaamac baa tixdii gaadhay oo markii uu maqlay sheekadii helay ayuu axmed barre soo gadoonkiisii u soo dhiibay jawaabtii oo isaguna uu tarkii ka garnaqaayey waxa uu ihi xaaji jaamac axmedow ninkii qabanayaan qodob u sheegaaye qararo iyo waa taanfadiyey gurigii qoorwaaye qabaarkaba nin hayn baan ahoo qoofka dhacay moobe qaylada dhankaa iiga timi qoladii aan sheegtay qurux ma laha dhuunigu haddii laysku qoonsadee fasaarii salaan waa wixii jaray ku dheemiye jiilaalka waayay abaar qamaxu duulaayo
horta yaa balqoonsaday ninkii subaga soo qaaday haddii aa qubtaan weerarow quni ma yeedheen haddii uu qurmuunaa hadduu subagu quriyey maxaa loo qurqurinay weerar baa ku soo noqday tixdii labaad markaa oo iyana aan dhammayn inta si aynu ka hayno gabaarkaba minaan haynin oo qaatilaa tahay qararra iyo waxa aad fadhiday gurigii qoor waaye subagii qurmuunaa waxaa loo qurqurinay qarfadii la marayay naftii qadan waayeen ninku dhiiba haysaa xarrago qayb ka geli waaye intaa waxaynoo ku dhan silsiladii gabaygii xaydha inkastoo gabaygii aanu halkaa ku wada dhammayn haddaba gabaygaa silsiladii oo muddadaa la tiriyeyna ahayd muddadii ilaa dagaalkii 1941 waxay halkaa gabaygaasi u tusaya dadka soomaaliyeed sida uu had iyo jeer gabayaaga ugu hasaawi jiray ee uu u ahaan jiray gabayo farshaxan ah oo hasaawo waayeel ah barnaamijkeennan suugaanta ee silsilada xaydha waxaanu ku soo gabagabayn doonaa hees aad u macaan waa hees aan si gaara idinku soo xulay waxaa curiyey oo codka raaciyey caraale diiriya guulid heestan waxaa isku laba rogayaa fu'aad waxaa aabbo u ah caraale oo ah ninkeedila socodsiinayay soona diyaariyey suugaantan silsilada xaydha caraale waa ina diiriye awguulid oo ka mid ah ragga uu kaftanka silsilada xaydhu dhex maray waa kan codkii macanaa ee fu'aad caraale diiriye awguuleed iyo heestii
Sula Bahna